Somaliland muddooyinkii u dambeeyay waxaa ku soo badanayay shilalka kala duwan ee gaadiidka iyo khasaare tiro badan oo soo gaarayay gaadiidka lagu isticmaalo gudaha dalka. Haddaba shirkadda Maas Global waxa ay ka mid tahay shirkadaha dalka ku soo kordhiyay adeegyo casri ah oo ay bulshadu baahi weyn u qabtay. Adeegyada casriga ah ee ay Maas Out Service ku soo kordhisay dalka ayaa waxaa ka mid ah habab casri ah oo ay uga shaqeyso isla markaana ay u nashqadayso una buufiso noocyada kala duwan gaadiidka ay waxyeeladu soo gaadho. Haddaba saaka ayaanu ku booqannay xarunta ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa, waxaana ugu horreynba nooga warbixiyey hababka ay u shaqeyso iyo adeegyada ay bixiso shirkadda Maas Global. qaar ka mid ah maamulka iyo injineerada shirkadaasi. shirkadu waa shirkad Maas Global waxay qabataa shaqooyin fara badan sida baabuurta rinjooda baahan laga bedelo printing toosin electric hawlo fara badan bay qabataa shirkadu mechanic electric wax kasta shirkadu baabuur baahan yahay waa laga helaa number professional kaas هذا تاي رنشجا تاي تستوسنتا هذا تاي إلكترونيكا حافر والله أين نهو أحقان والله أنا يجيب وقلي سونا تمر كاستمر كجاد بنسوي بيننا حولنا هاي مركز شقة ونحسن شقة ونحسن أنا ذي قبنا بدرها لي كلنا مركز سوق عفوا يقبل نسوي بيننا نشترينا شقة ونحسن بالنا سوي بالنا هاي شقة هذا مكا بريها واحد ترجمة فرقان شغالية بالسوق في ومن خلقها خاعة سديد من كين دورة من شغالة باكستانية الهندسة كتير مركا حنا نخدم في أنا سوى عن مشروع كنتري والله شغال الهندسة ونحكينا وأنا سوي بينا وإيش على قلنا qaar kamid ah customer-ka ama macaamiisha oo iyagana aanu kula kulannay isla goontani ayaa iyaguna nooga warbixiyey adeegga ay u qabatay shirkaddani iyo sida ay uga hadlay adeegyo casri ah oo ay magacaygu waa Sidiq Cali Cumar waxaan ka mid ahay customer-ka yimaada garage-kan Maas Auto Service run ahaantii garage-kan wuxuu soo kordhiyay service unique oo aad loo mahadiyay farsamo ahaan anigu gaari baan keensaday gaarigii si wanaagsan bay ugu sameeyeen maanta meel ay rinjiga mareen waxaad moodaaba kii uu ku soo degay marka farsamooyinka noocan iyo bisnada noocan waddanka u baahan aad iyo aad baan ugu mahad celinaa dadka ganacsadayaasha ee businesska noocaas waa Cabdiqani Xuseen Abukar Cabdiqani Baylo TV-ga caalamiga ee GTN TV Hargeysa.